waxaan bal tacliiq saaraynaa videoga yarka ah صح فيديو هذا شاشته كم موضوع أركيسان ahay ninkan oynayaad u jeedaan waxaa la yidhahdaa Raymond meesha uu fadhiyo guddi baa fadhiya guddigani waxay u sharaxayaan inuu noqdo chief judge-ka South Africa chief justice South Africa حير إلى جود ودن كليران ودن South Africa marka طبعا qofka marka shaqo loo dhiibayo background la soo baaraya صح nin ayaga kamid ah wuxuu yirinayo qisa cajiib ah oo aad jaamacadda ku gashay ayaan akhrinay bal qisa nooga shaqay عجيب واجرت ولا قصص واجرتها بوري وحيري طبعا وانا حلقي عنقبات ان جرتي محلي ابارتايد كا اما مبتكور جري وين دولة عنصرية ساوث افريقيا جرت جري جتي صح marka wuxuu yiri secondary gaan dhiganay inuu galaaska koob jabnaad meeshan dhiganay hooyadii baa mas'uul ka ahayd ilaa 7 qof ayaan ahayn ana ugu weynaa waxaan rabay inaan sharciga barto qanuunka inaan bartaan waliga jeclaa marka halka maray hooyadii lacag ka go'day صح marada hooyadii lacag ka go'day automatically dhaqanka afrikaanka hadii wiilka uu weyn waa inuu rag caawiyo صح waxa barasho ma sii wadan kartid عندي marka waxaan siray wada hadda hooyada maanta la fariistan mustaqbalka ka dhumay hadaad ka tagtana waa ceebdi صح waxaan samee عندي marka waxaan damcay wari inaan wax lacag ay ku siinoodaan inaan helo waan baxay dadka dhan albaabka kor raacay marka dambe nin muslim ah oo magaciisa uu ku sheegay Ciise laakiin marka dambe Saleebaan liyaada ayaan u tilbir qisdan uu sheekay ni waxaan rabaa inaan wax barto laakiin hooyadey iyo caruurti ya duruufna caasirsan marka ma caawin kartaa deyn ma siin kartaa صح أخبر ha waa ku siin karaa bari laakiin kaash kuma siinay hooyada maalinta dukaanka ka timaado ما حربتها كمان waxay rabtaa ka qaata waxay rabtaa ma wali waxa diray 20 rubi أكو أذيقت ha ku adeegto هاي ma bishii baa bas maalinta ma qad laakiin wax lacag ma siin intaas miyaha خلاص انا فرحسن بان هويدي ويمي xaqo keer shaksan laakiin waxaan ka dhabaynay هاي maxaa tahay yaa ku soo darsaday aabaha may inta sheekada ma jiray hooyada murugaysan baa umid hooyada waxa ma sha Allah arrintii waa dhameeyay dukaanka sad wax ka qaadanaysaan arrintii waa dhanta aan wax barashan tagay ma salaam ninkii hawshii waa ka dhabeeyay anigana wax barashadan aad هاي sidaan ku soo qalin jibay maalinta dambe markaan soo qalin jibay ninku weymid buu haye ايش ترتيب سان wax ku bixinaa lacagta صح ترتيب يعني بين كسمه قد قربتها عندي عيري بكل بساطه اسمه والني شركه كاميرا لكن هذا شرط ما كو خريا هاي بحيث احسانك اني ان كو سميتك احسان ادينا او سمي عجيب halka markuu maray waa markuu oynay markay عجيب waa qiso oo emotion هذا العجيب هو fariin buu ka tagay ninkaan ma dhihin diinta soo gal ma dhihin maxaan ku rahdaay wax kale ma aniga maxaan ku sameeyay وناجي كوسم كوسم waxbarashan gacanta kugu siiyay adna dadka kale waxbarashan gacanta kugu ninkii qisada ku ka sheekeynay waa 40 sano ka bacdi maanta oo shaqadan la siino oo fadhiyo meesha وفرت 40 sano ka bacdi ninkii maalinta hadalka uu dhaxmaray uu yiri dadka axsan u sameeyay soo weydiimaysa inuu dhintay inuu nool yahay ma yaqaan videogi ba social media ku wareegay viral soo socday odigii wali nool يوتي هذا الفيديو كان كلا أوديس كأتك أركيسه وأسجي أو أنتي فيديو كأركي نيكي سور هذا ورانو إسمه كهكير يقول السلام عجيب مركي قصة داس ما كان أنت نداونه يي هذا جال أنا وحنج على قصص ما كان داونه صح إن أدور شخصيا محل علاقة الله لا حرير أما قف كلا أي لا أنا قصة داونه أيان وحن حسوستي تبكي أنا ولفتي أبالك أولها صح أنا ير ودأد هذا أخياتك وحر عمل أيان تعبر أسوس مي حمر هاي وتهريب هذه أي لفتين صح عادي قبل كنت لاقي صوتين حمر لا هذا وجهته لا وجهته سهل لكم يجمع المهم هذا فكيك لك محمد وحنا أنا وحبرته صح مقالة الإمد مكان مقالة الإمد شقة يو وحبرشة بقى وحكو حرن لغة إنجليزية مركز
luqadda ingiriisi aad loo xiiseynayay qofka wax baranayna waa inuu luqadda barto qofkii shaqaynayana waa inuu luqadda barto computer iyo course wax ku qaadanay ku qaato adi arrintii baan qararay magaaladii baan wax xoogaa nolosha shu ay u adkaatay in aan qaraabo ahayn ayaa wuxuu noo dhegeyso meeqa laga raba iskuulka $300 $300 anaa bixinaya ola tag meesha waay bas soo qaray $300 aan la baxa 3 bilood markuu waday iyo gambisi kama bixin noloshii baa ku adkaatay marka meel kale oo aan cid kale wax weydiinay ma jirto kooraskan haddii uu istaagana waa inaan gobolka ku noqdo wala wax kala qabanaysa ma jiraan maxaa qabana ma shaqeeyo waxbarin ma barto bas bil baan u gambeeyay bil baan iskuulkii aan dib u dhigay bil kale yimid timid markas waa lagu kicinayaa lacag iska bixi waa meel yar baray fidnimo dhalinyaro iska leeyihin صح ويقول لفتو إن قولي كرا سنين حاشا بحي ميل دولة أو ديكر تشرم اللي ينرى ما ما أنا كسر بجوجيني مركوح كحش وذي أرضي ذاك اللذن يعني وحلا دكتي العقد اسكب بحني لأن أنت لو يستأجلوا له ها ما نكس العقد ما عندما ربنا قريب وحنكو يا جماعة الخير معلك ما مش موجود مع الورقة ها معلك ورقة وآخر حالتنا مش شخصية مش شكي هذا قاضي حفيز كله تجي ما أنت الدم أو أنسوي هذا كع وكذا كبع خلاص يضل لكن أي أنتوا يمرون حاول أرتاد تاموي إسكفر خلاص اللي هو أسلوب جديد ورقدنا ما حدا وقرت حالتنا كشكل إيه هدفنا وجدان كلا إيه ما هذا مركا ساسوي مركا ممتاز أرضيك الأولادن أو يقاني أو العقد عم بحني يعني صح بس هي كورسي وان كفي اشتي فعنا وشقي الحمد لله وان برتي ما انت انا كل هذي وحي وحبرشه iyo nolol oo aan leeyahay noloshayda iyo waxbarashadayda waxa asaas waa kooraskaas wixii kadib aan bartay waxbarasho ah iyo shaqadayda aan maanta ka shaqeynay as foundation waxa waa kooraskaas macalinkaas ima aqoon dagaalka bacda asbaran أحمد حسين بالي هذا شرف إيتنا من عيسى عن شيبه يقول سكر لي مركب أنا مركي ولها العقد وكو فري أوقات إن اللجنة ذا يكوميتي سكول كيجو أنك سوقارين والشاقي مركب والشاقي على شاهد مشاركة الله يقولي عجيب مشاركة سكول كأس لينا مشاركة أنا وحنا أوقات إني سكول كدن يسوق لهذه أو فري اللي قديها لا أسابحني عجيب عجيب marka qof abaal ku galay laba risaalo waa leedahay inaad horta shukran tiraahdo aadiin inaad adigu laftaada umada kale aad u ihsaan sameeyso bidaat qofka waxbarashada gacanta kugu siiyo waa qof horumar kula rabo qofka adduunyo ku furay xoogaa yar oo dukaan ku furay fine waa fiican tahay laakiin adiga lagu dhisaya sheekh صح qofku inuu maanta wax ku siiyo inuu wax ku baro inuu wax ku baro ka fiican marka insha Allah qisadaydi iyo qisada ninka oday marka isku dartid adu qisadaada maxay tahay iyo abaal ku galay ma ka faa'iistay fursadda dadka inaad caawiso baro diyaar u tahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.